Si aad u hesho views badan iyo content waxaad u baahan tahay inaad iska saxdo arrimahan. Haddii aad rabto inaad sameyso thumbnail qurux badan oo tayo sare leh muuqaalkaaga soo jiidaya daawasho badan waa inaad raacdaa tallaabooyinkan soo socda. Qodobka koowaad, isticmaal sawir tayo sare leh. Isticmaal sawir dhammaystiran oo aan ahayn mid qas badan ama caajis ah. Haddii aad sawir qaadanayso, hubi iftiinka sawirka iyo xagalka si saxda ah loo dooranayo. Qodobka labaad, xulo midabyo iftiimaya. Midabyo xooggan sida casaan, jaalle, buluug, cagaar iyo waxyaabo kale ama kalaro kale oo daawadayaashaada indhahooda soo jiidanaya. Ka fogow midabyo isku milmay oo adkaanayso in la akhriyo ama la fahmo. Qodobka saddexaad, adeegso cinwaan weyn oo la akhrin karo. Ku qor ereyo yar oo si fudud loo fahmi karo. Isticmaal fonts cad oo si fiican u muuqda, iskuna day inaad geliso outline ama shadow si uu u soo baxo. Qodobka afraad, ku dar weji dareen leh. Weji dareen leh oo ka turjumaya farxad, murugo, yaab wuxuu kor u qaadayaa xiisaha thumbnail-kaaga.